بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي وين السلامي مقعي ورحمة هالكاد نيدا ونيسان وملك جنل. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إله سبحانه وتعالى وحنكبرينا إنه نوفضيو دمان عباداتك نوعيضة كلا دوان sidoo kale ilaahay subxaana watacaala bisha barakeysan ee ramadaan fadligeeda aawadeed waxaan ilaahay ku weydiisanaynaa inuu naga dulqaado cudurka halakeeyey adduunka oo dhan covid-19. kadib maanta waxaan ka hadli doonaa cunada ay qaadanayso hooyada urka leh ama cuntooyinka u wanaagsan. cashirkii ka horeeyay waxaa uga soo hadalnay ilmaha uurka ku jiro iyo maraaxisha ee maraan qaababka ay u koraan. sidaas darteed ciwaankeena maanta wuxuu noqonayaa cuntooyinka ugu wanaagsan ee qaadan karto hooyada uurka leh. guud ahaan way wanaagsan tahay qofka insaanka ah inuu helo cunto caafimaad leh oo isku dheelitiran. hooyada markay uur leedahay way uga sii habboon tahay inay hesho cunto caafimaad leh, sababtoo ah jirkeeda wuxuu qabanayaa shaqo dheeraad ah. si caam ahna qof kasto waa inuu qaataa cunto wanaagsan. hooyada iyo aabaha inta uusan ilmaha uurka gelin ayaa muhiim ah inay ka fikiraan cuntada ay qaadanayaan. taasna waxay sabab u noqon kartaa inuu beermo ilmo wanaagsan oo caafimaad qabo. hooyada uurka leh inay hesho cunto isku dheelitiran waxaa ku jira caafimaadkeeda iyo kan cunugeeda. waxaa jiro cuntooyin badan oo leh faa'iidooyin kala duwan, sidaas darteed kuma qasbana hooyada inay wada qaadato cuntooyinkaas oo idil. inta ay ka heli karto ay ka isticmaalaysaa ama cuntada ay jeceshahay inay isticmaasho. waxaa muhiim ah hooyada uurka leh inay qaadato cuntooyinka laga helayo dhammaan waxyaabaha uu jirka u baahan yahay, sida borotiinka waa 2 nooc. mid waxaa jiro laga helo dhirta sida digiraha iyo dhammaan cuntooyinka qolofta leh. sidoo kale waxaa jiro borotiin laga helo xoolaha sida ukunta, hilibka iyo dhammaan kalluunka noocyadiisa kala duwan. borotiinka hooyada uurka leh wuxuu ka caawinayaa ilmaheeda inay si sariic ah inay u koraan oo caafimaad qab ku jiro. sidoo kale hooyada wuxuu siinayaa nashaad iyo xayawiya ama firfircooni. sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanayaa hormoonaadka jirka shaqooyinka ay qabtaan. waxaa kaloo muhiim ah hooyada uurka leh inay hesho faatiska wax loo yaqaano ama duxda, sida saliida lowska, afakaadhada, saliida saytuunka, saliida malayga. dufanka hooyada uurka leh wuxuu muhiim ugu yahay, wuxuu ilaalinayaa xubnaha daakhilka ah. sidoo kale wuxuu tawaasun ku sameynayaa hormoonaadka shaqada qabanayaan. sidoo kale wuxuu muruuna ama qurux u siinayaa maqaarka. sidoo kale wuxuu caawinayaa galakoosyada jirka in isku xoqmin u ka ilaalinaya ama aysan qalalin. waxay kale u baahan tahay hooyada uurka leh inay hesho fitamiinka. cuntooyinka laga helo waxaa waaye khudaarta cagaaran iyo miraha ay ka mid yihiin cambaha, qaraha, babayga, tufaaxa, isbaandheeska, yaanyada, muuska, dhammaan khudrada kala duwan iyo fruitska. fitamiinka hooyada uurka leh wuxuu ka caawinayaa in jirkeeda uu iska difaaco cudurada banaanka uga imaanayo. sidoo kale wuxuu siinayaa qurux iyo dhalaal. sidoo kale waxaa muhiim ah inay hesho hooyada uurka leh cunooyinka ay ku jiraan birta ama ironka, lianno waxay ka hortagaysaa in hooyada dhiig la-aan ku dhacdo ama dhiig yari. sidoo kale hooyada waxay u baahan tahay inay cabto biyo ku filan. biyaha ku filan hooyada waxay siinayaan firfircooni. sidoo kale ilmaha uurka ku jiro wuxuu siinayaa isagana nashaad oo si fiican inuu u dhaqaaqo ama xarakaadkiisa ay fiicnaadaan. sidoo kale waxay ka qayb qaadanayaan hooyada in daalka ka yareeyo maadaama shaqo dheeraad ah u qabanayo jirkeeda. sheyga ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynayno wuxuu yahay hooyada waa inay heshaa fitamiinka loo yaqaano folic acidka ama vitamin B9. vitamin B9 hooyada wuxuu ka caawinayaa
in si fiican uu shaqeeyo wareegga dhiigga. Sidoo kale waxay ka heli borotiin iyo dux. Sidoo kale wuxuu ka caawinayaa shaqada ay qabanayaan sidoo kale wuxuu ka caawinayaa shaqada uu qabanayo habdhiska dheefshiidka. Sidoo kale wuxuu caawinayaa quruxda maqaarka, tinta iyo habdhiska neerfaha qaabkay u shaqeynayaan. Wuxuu korinayaa murqaha. Sidoo kale wuxuu soo saarayaa ama uu ka qayb qaadanayaa koritaanka RNA-ga iyo DNA-ga waxa loo yaqaano. Sidoo kale hooyada wuxuu ka caawinayaa ilmaha uurka ku jiro inuu si fiican oo nadiif ah inuu koro. Sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa koriimada dadka ama ilmaha markuu ku jiro marxaladda qaangaarka ee ugu horeyso. sidaas darteed folic acid-ka qof walba wuu qaadan karaa. Hooyada way qaadan kartaa haddii ay uur leedahay iyo haddii aysan lahayn.